ayaa siyaasadda arrimaha bulshada ee xisbiga wadani Marwahinda Jaamac Gani ayaa maanta maray la hadlaysay qaar ka mid ah warbaahinta gobolka Togdheer waxa ay sheegeen in xisbiga mucaaradka ee wadani uu diyaar yahay doorashada isla markaasina uu qaban doono shirweynayaasha haweenka iyo dhalinyarada iyo waliba shirweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani muddooyinka fooda inagu soo haya Marwahinda Jaamac arrimahaasi ka faalanaysa iyo waxay tiri dhacsana xisbiga kulmiye taladiisu meel bay saaran tahay oo inaanay doorasho dhicin isaga niyada ugu jirta marka wax kasta oo la yiraahdaa uma sadaqmayso ama uma cuntamayso u dhadhami mayso inuu hadal la yiri oo runa uu yahay hadaba waxaan cod dheer ku leeyahay xisbiga mucaaradka ee wadani wuxuu diyaar u yahay doorasho xor iyo xalaalihi inay ka dhacdo jamhuuriyadda Soomaaliland deadline-kii loogu talagalay oo ah 2015 June 26 wixii ay ku gudbayaan iyaga ayaa og anagu sidaas ayaanu leenahay oo aanu aaminsanahay oo naga runa waxaanu astaan gaar uga dhigaynaa oo diyaar garowgii iyo qabanqaabadii xisbigu una doorashadiisu ay ka furmi doontaa sidoo kale bilaha inagu soo socda shirkii golaha dhexe ee uu xisbigu lahaa ayaa dal iyo dibadba la isaga iman doona oo dhici doona taa macnaheedu waxa weeye waxaanu u diyaarnahay doorasho ayaanu u diyaarnahay ee hal laydinka helo sidoo kale Marwahinda Jaamac waxay dhaliilo culus dasha uga turtay mas'uuliyiinta xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo markaan taa ka imaado waxa weeyaan ee aan u soo noqdo macnaha hal la dhiso xukuumad tala wadaaga hal qodob baan xukuumadda maanta jirta ee xisbiga kulmiye ugu cadeynaya maadaama oo maanta tajirtaaba ay tala wadaag tahay sidii uu sheegay mudane Abiib oo ah wasiirkii iska casilay wasiirka warshadaha waxa weeyaan wuxuu sheegay in ay sababta uu isaga casilay xilka ay tahay ida kasar al dabaakhin fasadal maraq oo uu ku macneeyay ama macnaheeduba tahay haday kuugtu tiro badato waxa xumaada maraqa hadaba maaliyadda ee hore markii uu xilka iska casilay wasaaradda waxbarashada sababta uu isaga casilay inay tahay annamiim iftiya oo macnaha u dhaxaysa oo looga dhex waramayo marka cidda xilka loo igmaday waa madaxweynaha ee talada qaranka loo daba fadhiyo iyo dadka u shaqeeya ee iskaafkiisa waa qaybta wasiirada in ay jiraan xidhiidhiyayaal aan la garanayn oo cadayn oo u dhaxeeya kuwaas oo keenaya waxyaabo isdhaafa oo sidoo mudane Soomaaliya ka dhawaajiyay qof kasta oo xilkiisa gudanayay meel ka dhac ku noqon kara hadaba miyaanay idin la muuqan maadaama oo aanu hanaanka maanta jira aanu ahayn wax aragti maqal iyo awood kaliya leh in uu keeniba karo qofka dhexmaraha ee labada dhinac u kala talaabaya miyaanu keeni karin wax qaranka wax u dhima waa Adnaan Saciid Adnaan Miami telefishinka madaxa banaanay Bulsha TV magaalada Burco.